hadda maxaa ii rabtaa baan dhahay hadda markaas ay dhahay cunugayga dish ani accidentally ba u dilay ma u jeedin waa ku istaagay ilaaha wax dilay ani wax ma dili karo accidentally ba ugu istaagay mana u jeedin waaba cararayaan السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا ليال سلام أدو قيمة بدن كدب وان كحومه ولا ليال إن ولا لبدن أي كعبتين نمبر هذه مالك اللي بدأ بحناي مركز سواعان أي أسر تجلويسي إن أي تلفك وصقله sidoo kale walaalihi telefoonka qabanayo ka jawaabay iyaga laftirkooda aad bay uga cabanayeen dadka tiro badan awoodna aysan u yeelan karin inay kulli u wada jawaabaan qof walba ay qanciyaan insha Allah taala walaalayaal systemkaas waxaan wax ka bedeli doonaa markii aan umrada ka soo noqdo insha Allah qisada hadda aan idinka soo dhaxgalay iyo qisadii ka horeysayba waxay ahaayeen laba qiso aan duubay inta Australia joogay laakiin aan waqti u waayay aan ku edit gareeyo يعني مشغول كيغو aad u tiro badan darteed qisooyinka Nairobi aan ugu talagalay inaan ka duubo waxaan bilaabi doonaa biidnillah inaan soo geliyo soo gudbiyo markaan safarkayga insha Allah taala ka soo noqdo inta ka horeysana waxaan leeyahay walaalayaal ducaadiina ha igu ilaawina ana sidoo kale insha Allah taala ilaahay waxaan idinkaga bariyaa khayr aan dhamaad lahayn walaalayaal waxaan rajeynayaa insha Allah taala qisadaani inay noo noqoto qiso cibra ah sidoo kale tana noo dhaweyso na jeclaysiisa sunnadii rasuulkeena salawaatullaahi wa salaamuhu calayh in aan jeclaysano ducooyinka uu akhrisan jiray habeenkii iyo maalinkiiba dhageysi wacan insha Allah soo dhawaada wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh walaalayaal salaanta aada u sarreysa kadib insha Allah tacaala barnaamijyadii aad nooga barateen ee ahaa awoodda Allah subxaana wa tacaala iyo inuu yahay qur-aan ku daawo waxaa inoogu caawa marti walaasheen Zubayr insha Allah tacaala oo ka mid ahayd walaalihii uu ilaahay awoodiisa ku muujiyay Zubayr ku soo dhawow waxa ku daawanay walaalo aad u fara badan oo dhowr kun oo qof insha Allah tacaala oo ah walaalaha dartood meesha u soo fariisatay marka waxaad nooga sheekaysaa bal maxaa kugu khasbay inaad quraan ku fakarto iyo wax dhib inta la eg baad soo martay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل مسلمين تي انت فيديو داوانيسو around the world waxa igu kalifay inaan quraanka maanta ku soo dhanka quraanka soo aaday waxa waaye muddo adiga ilaa 12 sano to 12 sano aad u xanuunsanaa oo isbitaal kasta aan aaday marna kuma fakarin inaan quraan dhankiisa soo aado quraan waa isku akhriyo ayad kursi iyo laakiin quraan wali marna ma saarin marka isbitaalkiina waan ka daalay madaxa aad iliga qaban jiray dhabarka iyo wadnaha saddexdaas ay ugu darneeda ka kici kari waay oo maalin kasta x-ray ama isbitaal kasta aan wadan kasta ka tago socdaal baa muddo ahaa marka waxa waaye isbitaalkan tagaba ultrasound ama waxaan qaadaa ama x-ray marka taas baa igu kaliftay inaan maanta quraanka aan dhankiisa ku soo ordo quwadiisana waa arkay quraanka iyo fiicnaantiisa iyo ma aragtay saan ku noqday kadib inta aan quwada quraanka insha Allah taala inaan u gudbin bal waxaad wax yar iga tataabataa dhabarkii iyo xanuunkii jirka aad ka dareemaysay hadii kombiyuutarada la saaray wax ma laga arkay waxna lagama arkin dhabarka inuu jaban yahay booda marmar ma aragtay dab baa ka baxay ama meesha fadhiisto kulayl waxaan moodaa khandho markasta inay hayso korkeyga habeen kasta ma aragtay meel biyo leh inaan ku jiro haddana subaxdii leeg marka salaad subax soo kaco ama aanu neeftuuray ama neefsan karin ina ma aragtay aan sariirtaydo dhan arko anoo qoyan marka muddo saas baa xanuunsanaa Panadol madaxiina marka ka kici waay madaxiya marka waxaan soo qaadanaya Panadol waxa dhaqtariinta waxay dhahayaan migraine waaye waxa waaye ii sheeg madaxa 24/7 madaxa baa hal side xanuunayo marka alxamdulillah hadeertan daawada ma ku caawin jirtay maya ima caawin jirin madax xanuunka marna ma iga degi jirin khayr insha Allah taala Zubayr waxaad insha Allah taala bal nooga warantaa quraanka awoodda waxyaabo aad kala kulantay maxaa kamid ah waxyaabaha kugu yaabadnaa soo aragtay wallahi horta habeenadii u horeysay aad baa u xanuunsan waa ka sii daray habeenkii koowaad horta weerar bay igu soo qaadeen oo kiyaana gashta oo kiyalihiiba iga jabiyeen lacagtiina disappear ay noqotay boorso aan weliga isticmaalnay qaar ku rideen qaar kale waxay ku rideen sariirta hoosteeda waa imaada shiiqiya u sheegay shiiqo waa ila soo weeraray no problem buu dhahaa hoosh waa sii soconaysaa
habeenkii koowaad horta muddo cabaar markii quraanka lagu waday ba aad u sii xanuunsaday hurdo yar baan gashtay markaan hurdo yar gashtay madaxii xanuunkiisa iga tagay oo madaxii badnaa anagu markaas aad u liito oo labada garbood ila wada baan guriga soo galnay sheekh bas markaa imaanay habeenkaas wadnaha aad iliga hayay iyo madaxii markaas u baxay wadnihii marka neefsan kari waay ilaa guriga u sii socon xaafadeena wadnihii waa ka neefsan waay 3 mar gaariga la istaajiyay inaa hawo qaato haddana waxaan dhahay sheeqan ma aadayo x-ray wadnaha marka xanuun weyn baa halis aba ahayo marka istaalka inaa ila dhigaa raba emergency-ga hooya waxay dhahday waxaan emergency-ga kuma shuqul laha waa taa quraan biralawnay ee waxa yeeshaa quraanka bal aan ka salgaarno 7 bari 3 bari ma marka biyo lagu yimbiinay 3 bari habeen kasta marka habeen barkii soo kaco mise anoo qoyan biyo lagu ciijiya markasta anoo meel ka laalaado hadba anoo ordayo haddana neeftuurayo wadnihii wuu ka sii daray 3 bari muddo 4 bari marka asaas quraanka liigu waday markii dambana ma aragtay caafimaadkaygu wuu soo kordhismay iyo farxadeyda iyo awal qof isolated ku jira ahaa oo marka qolka iyo inaan jiifsada rabo iyo maanta dhan waa iska daba wareegsanay I'm busy and I'm not busy ما شاء الله ولا ليال ولا شين وحي استعمال شيء وحياوي يريرو إنجليشة isolated بان نقول معنا حول جدا قف جوني وقصتها نقول إذا كوا كده بحي قربة وقاي إن شاء الله تعالى واحد إيشك تاع من الزبير ولا راح جعل الله على غيب سنة ولا روح آد حسينا يا إنه وقعدان أركتدا قابك وحواركتي وحياد وبرتين ولا قبصدين qof kasta halka soo fariisto ilaahay awoodiisa ka sheekay subhanahu wa ta'ala marka waxaan jeclaan lahaa bal in wax yar aad noo tataawato horta aragtida waa nasiib waxa waaye qof ilaahay ma aragtay jeclaaba wixii tusay lagu suubiyay aragtida 4 bari anba wax ma arkeenin laakiin quraankii baa dibsanayay waan sii jirinayay marka dadaal fara badan baa guriga ku sii suubiyay ina adkaartayda sii badiyo ina istighfaartayda sii badiyo salaadaheydii intay ahaan jiray inaan dhabal iyo sujuud badan oo ilaahay bari ku jiro baan suubiyay haddana intaan guriga joogaba baqra baan dhageystaa dhagaha ku shidaa marka dadaalkana way jirtaa oo inaan la imaadid waayo marka dadaal fara badan sheekha ma aragtay quraanku wuu akhrinaya laakiin haddaad dadaalin ilaahay visionka kuma siinayo visionka waa baryo ilaahay sujuud waa inay ku baridid sayinda ilaahu itus marka baryadaas baa ilaahay igu tusay aanu aad u baryo 4 bari wax ma arkeen maliil baa ka sii dareeyay oo quraankii hope waa lose garay like I lost hope on the other side of quraankii marka insha Allah marka ilaahay markuu itusayna iyo galin marka aragtida wax yar baa jeclaan la walaalaha in xasuusiyo walaalayaal walaasheen wax fiican baan xasuusisay waa loo baahnaa in ay tilmaamto aragtida say ku imaanayso aragtidu ilaahay bay ka timaadaa kulligeed qofkan wuxuu ku helaa waa cibaado iyo dadaal iyo baryo ilaahay oo jilbaha dhulka u dhigto waxaa jirta oo hadalka aan xasuusinaya email-ladii isoo dhacay waxa kamid ahaa markii aan tilmaamay inaan online bilaabi doono insha Allah walaalaha qaar kamid ah waxay weydiinayeen sheekh online-ka ma qofka markuu kula joogo wax u arkayo oo arkaya su'aal u baahan in macnaha qofku ka fakaro aragtidu haday ahayd wax aniga ugu xirnaa markaad ila joogto bas baad arkaysaa laakiin haday ahayd aragtidu mid Allah ku xiran subhanahu wa ta'ala qofku meeshuu doono ha joogo aragtidu waa isku mid aragtiduna muhiim ah daawadu waa quraanka aragtida ilaahay baa baxshay subhanahu wa ta'ala haduu rabo qofku inuu siiyana waa siiya haduu san siinina mar walba daawadu waa quraanka hawsha kaliya fududaysa ilaahayna subhanahu wa ta'ala sida uu hore noogu sheegay quraankiisa wuxuu leeyahay ilaahay subhanahu wa ta'ala inma sana'u kaydu sahir ولا يفلح الساحر حيث أتى آيات أدبا وعلنا إلهي وحت الماما يا سحر لها ميشو دونها جو علمي سوح دونها نقضو عصر دونها نولاضو إنه سوح بقول جارين إلهي إنه سحر كسبابين سبحانه وتعالى إله زود دجن مايو بن آذك لما سود حق لك وحنا تسيسا إلهي إن علمي جدتك مؤمنين تها وكرو قاضيو سلوا قول الدجال لما سحر كنا الله بابيو aragtida ilaahay baa baxshay subhanahu wa ta'ala si hawsha ay u fududeyso si waxba aysan u baxsanin maadaama casriyadii hore ay ahaan jirtay sixirku sixir iska fudud oo easy ah oo qofka jirkiisa lagu sameeyo waayahan dambana ay tahay sixir banaanka lagu sameeyo aragtidii laga maarmo alxamdulillah ilaahay waxa mahadiisa ah
dadka hadda quraanka ku akhriyo boqolkiiba waxaas dhihi kara 9 waa arkaan marka waxyaabaha aragti maxaa kamid ah tir horta maalintii shanaad baa waxyaalo badan arkay waxyaalo ma aragtay dhibaatadii haysatay kala bar waxaan arkay maalintii afraad marka maalinkii shanaad baan waxaan arkay dad badan oo ii sheeg guri aan kasoo guurnay ma aragtay qoryo ku gurayo oo ma aragtay waxyaalihii ma aragtay lagu subiyay iyo meeshii inaan qodo oo kasoo bixiyo wixii baan saas u arkay dadka Zubayr qoryaha ku gurgurayo guriga maalintii ugu horeysay aad aragtay aad baa cabsi fara badan kaaga muuqatay waana dabeecadda bini aadanka laakiin maalinkii dambe dadkii guriga lagu qufulay iyaga aday ku maalinkii koowaad meele igu xirxireen geed oo gurigeena kasoo horjeeda baa ka laalaaday waxna ma qaban karin xoogaa ma aragtay waa cabsaday sidii baan ku baxay laakiin waan sii xanuunsaday xanuun zaid baa wadnaha iga qabtay subaxdii habeenkii labaad baan soo laabanay habeenkii shanaad dadkii oo meeshii inay igu xirxiraan rabeen ba anigii baan ku guuray meeshii oo dhan baa ku xirxiray meeshii markaan ku xiray ba mid kamid ah wuxuu ii tilmaamay geed aan gacantayda ku abuurtay oo xaafadeena kamid ahaa buu wuxuu dhahay halka geedka qod waxa ka soo bixisay furfur buu igu dhahay halka fiir geedkii baan soo qaaday waan furay marka jawaan yar baan arkay jawaan oo la jaray juuni oo hadan dhuxul madow iyo timow iyo wax jarjaran ku jiro baan arkay haddana waxaan arko kale faraanti oo muddo 5 sano aan haystay oo maalin baa haddana intaa wax iga galay baan dhaqay miis baan dul saaray haddana waa waay reerko dhan baa weydiiyay faraantiga waa waay meeshii faraantigeygii baan ka arkay markaasaan dhaashiiqow faraantigeygii meeshii ku dhex jira maxaa suubiya anyways wuxuu igu dhahay quraan ku akhri adkaartii baan ku akhrinay quraankii baan ku akhrinay ayad kursi baan ku akhri anoo ku akhrinayo wado quraankii ba abaysa weyn iyo sheeg lizard weyn adiga mulac weyn baa dhabarka igu soo duumatay igu soo booday waxyartaadan mulaca qisadiisa galay waa qisa labaad oo si socon doonta insha Allah taala walaalayaal gabadha walaashan ah faraantiga ay sheegayso waxaan malanayaa dad badan oo dadka daawanay kamid ah baa waxyaabaha kale experience ahaan soo maray oo yaani soo arkay waxa dhacda faraanti adigu aad leedahay ama dahab adigu aad leedahay meel dhigaysa jimbe u soo diraan inta badan way hadaan sicirka ku sameeyaan meel bay dhigayaan waliga sicir bay ahaanaysa laakiin rabbiga qaybka iyo wax kasto qarsoon daalacanay adduunkan oo dhan ka warhayo isagoo abuurtay ee wax kasto ku qarsoona ogaaba quraanka dajiyay Allah sa quraanka dajiyay maalinkii hadda ay u tageysay maalinka kuwaad way cabsanaysay maalinka labaad markaan soo noqonay quraankii aan wadnay dadkii guriga agtiisa jooga ay ka cabsanaysay inta guriga lagu guro lagu qufulay ayaday bariyay waxa leeyahay ku bariyana guriga naga fur oo ku bariyayna guriga naga fur sixirkeena wuxuu ku jiraa geedka hoostiisa iska ka yacafi markaa kadib bay sixirkii soo saartay oo sixirkii hawshiisii ku mashquulsan dhameystirkiisii yaa uu bulacan ku soo booday bulaca stories muxuu ahaa xagee ka yimid sidii waxay mulaca sheeqowad anada waxa waaye ii sheeg story qisa kale oo markaan yaraa adiga mana yareen gabar rooga iska roomba ahay masquul buu iga soo raacay mulacan masquul buu iga soo raacay marka masquul baan ku qubaysanayay marka mulac yar baa iga soo korka iga soo koray anigiyo sii orday oo waana ka cabsan jiray mulacyada uu iga burjo sareeya marka mulaca ma jeclaan jirin markuu igu soo dhacay anoo sii ordayaba mulaci ku istaagay meeshii uu ku dhintay ilaa mulacaas maalinka ku istaagay waa xasuustaa hooyadiis baa kor saarneed mulaca hooyadiis oo weyn waxay igu dhahday cunugeyga hadaa dili lahayn dhibaatadan kuguma dhici lahayn oo dhibaatada ma adaa igu wado baa dhaha markaas dhaad haa adigana intaa nooshahay cunug ka soo baxo waa dilayaa bay dhahay bas sheekhay baa quraanka wadaysa sheekhow saasay leedahan dhahay mulaci saas u dhahayaa wuxuu dhahayaa cunug kasta dhashid waan dilayaa sheekhu wuxuu dhahay ilaaha wax dilo ka soco quraanka akhri sidii baa quraanka u wadnay gobolka hadda ka soo tagay wadanka hadda ka soo tagay baa laba mataana kale iiga dhinteen meeshii aan ku aasay bay istaagtay waxay qodaysay kumo iyo dhagaxuun cadcad markaasay halkaasay dhigatay xaggaasay dhigatay xaggaasay dhigatay bas iyadoo hoggii qodaysa baan waxaa arkay wiilka hadda ii joogo mataankiisa
madaxiisa marka xoogaan waan dhahay shiiqow waxaa arka ii sheegay cunugeygii saqiiray mataankiisi kan joogo kiisii kale markaasuu dhahay haye kasii soco dhahay qur-aankiibaa akrinay qur-aankiibaa ilagu waday hadda maxaa iga rabtaa baan dhahay hadda markaasay dhahay cunugeyga adish ani accidentally baa u dilay ma u jeedin waa ku istaagay ilaaha wax dilay ani wax ma dili karo accidentally baa ugu istaagay mana u jeedin waaba cararayaan dhahay hadda iyo dan ma i dhaafaysaa maya kuma dhaafaya dhaha sidii baa ma aragtay qur-aankii u akrinay oo shiiqii qur-aankiiba u akhriyey meeshii waa marka ukumihii iyo dhagixii iyo ilaahay dhulka la gooyo oo meeshii bay ku gubteen cajiib maasha allah tacaala ilaahay baa subxana watacaala kaaga filnaaday walaalayaal waxaan jeclaan lahaa si aad qaabkii sheekada u wada fahantaan maadaama dad badan oo cusub ay ku jiraan dadka daawanaya maadaama dad horay qoray qisada ula socon jireen ay jiraan waxaan rabaa si aan arrintii u kala saaray inaad socotaa insha allah taala brief ahaan baan u dulmarayaa kuma sii dheeraanaya laakiin qisada waxay ahayd walaashu markay kasoo saartay sixirkii geedka hoostiisa farantigii iyo timihii iyo dhuxushii waxyaabihii isku jiray iyadoo qur-aankii ku wada hawshii wada baa madax waxaa kaga soo booday mulac ama bulac lizardka baalka ay dhahaan guryaha meelaha darbiyada furfura koonradooda baa halkaa ku dhigay oo aada u weyn sheikhow waa mulac baa igu dhegan oo ijiidayay tiri qur-aankii baan wadnay caadi waxaa ah rabulcaalamiin aan ku naqaanaa subxaana wa tacaala intuusan sixirka iyo ishaba baabi-in in historigeeda la arko meeshay ka timid asalkeedii waxaan idhi muxuu yahay mulacaan muxuu kaa rabaa bal fiiri ilaahay bari subxana wa tacala qur-aankii anoo wada bay tiri subxaana allah shiikhuna waxaan arkaa mulacan hadda ka hor anoo masquul ku jira buu dusheeda kusoo dhacay waan qabaysanayay korkeyga kusoo dhacay maxaa ku taqaanaa qofku markuu cabsado dadka badanaa mulacyada ka baqa actionkii markiiba waxay bilowda inay cararto ordo iyadoo ulama jeedin laakiin orodkii ay ordaysay mulucii waa soo dhacay horteeda ku dhacay wayna ku istaagtay sidiiba ku dhintay markuu dhintay mulacaas dhintay waalidkiis oo kor saarnaa meeshu kasoo dhacay ku haray baa iyada soo dabagalay waa midka halkaan dhabarka ku dhegan ku dhegan wuxuuna la socday ilaa waagii musqusha ay gashay oo ay ku istaagtay mulicii markii qur-aanka la akhriyay suuraddii caadiga ahayd waalidka oo asalka ahayd buu la soo baxay maxaa ka rabtaa gabadhan masaakiinta ah ilmahaygay dishay ayadoona noolaan mayso hal cunug u kici maayo madaxa kor u qaadi maayo cunug kastoo ay damacda inay dhasho anna waa dilaya ayadana waa baabiinaya nolosheeda waxaan isku daya inaan la hadlo waaniyo u sheego qaabka wax u dhaceen waxaana accidentigu waa dhacaa bini-aadanka idinka iska daajinka ah maba idan aragnaba shil baana kala dhex mara iska daa idinkii annaga bini-aadanka dhexdeena ka dhacda qof hayweyga iska maraya qofku istaaga lama xiro wax laguma sameeyo waxaa dhacda waa khaladku waa dhaca adduunka dhan ka dhacaa wixii dhacay way dhaceen gabadha masaakiinta faraha ka qaad haddii kale waa dhimanaysaa qur-aan ilahay noo dejiyaan wadanaa calaacal buu bilaabay mulicii يعني صورة بني آدم كعادي مركز دم صورة بني آدم كانوا أكاذي ووالدك على الكذب يو عباد كذب وقابك هذا وشيء سو حيابها يكبدان ربعنا إلى فهمتان درينا هان إلى صعوتان ولا شو حيت المامي سي إن سو يعني بلعي والدك نقضي صورة دي سي أو يا إنه قضي لوكي عيل بلو يا يعني هو إجا أتكاتي إجا ما أنا أتكاتينا قرآن كان يا رب العالمين بقيكا liiday waxba kaama qaadi karo laakiin wali stiil anoo dhibkii jeclaan lahaa inaan sii wado ilaahay baa igu khasbay inaan soo saaro dhulkii buu qoday wuxuu ka soo saaro ukumo waxay u taagan yihiin ma fahmi kartaan baan maranaya asal ahaan xamaha qofku meeshu ka yimaado ukumo wey asalkooda matalan ahaan waxaa laga yaabaa ukumaha saan isri inay ka matalayeen ilmihii marka iyadoo xambaarsanayd maadaama ninkaana uu ku dhaartay inuu ilmaheeda dabagalo cunug kastoo soo kacaaba u dilo markuu cabaar soo wada ukumihiiba waxaan arkay iyadoo qaynaysa subxaan allah dhahay weliba dee actionka qaabkii ficilka u bixisay gariirkeeda maxaa kugu dhacay markaasta sheekh madax wiilkayga saqiiray oo hadda ka hor dhintay madaxiisii buu kasoo saaray god ku jira macnaa waa u tirsan yihiin ukumihii wataa mar walbid buu jabinaya cunugee dhasho kuwa ku guulaysto madaxiisu meesha gashanaya waa dilay kan midka kale taa soo socdaan samaynaya kan kalaa ku xigay kan kalaa ku xigay ninkii wixii o dhan buu soo saaray yacni maxaan ka wadaa mulicii wixii o dhan buu soo saaray kadibna waa diiday inuu ilaahay subxana wa tacaala u noqdo dhibkana iska daayay ciid iyo balaayu sheeganay waananadiina waa diiday qur-aanka markii la akhriyana ilahay baa subxana wa tacaala xal u sameeyey waa dilay ilaahay subxana wa tacaala
marka walaalayaal qisadan waxaan rajeynayaa way dheerayd laakiin waxyaabaha aan ka faa'iidi karno waxaa kamid ah number 1 inaad fahantaan horta awoodda Allah subhanahu wa ta'ala wax ka qarsoonaysan jirin wax walba ama dhul hala geliyo ama waa hore ha dhacaan inuu rabbul caalamiin la socdo qisadan waxyaabaha kale aan ka faa'iideyno waxaa kamid ah xadiiska nabigeena sallallahu alayhi wasallam uu hadda ka hor nagula dardaarmay yani adkaarta nabiga sallallahu alayhi wasallam ka soo carartay adkaartan markastoo aad wax sameynaysa la akhristo مسخوشة مركز الجلي النبي محمد نبري صلى الله عليه وسلم على دين تاني وحكي ما تجي وحنا نبيين نبري إن مركز مسخوشة الجلي سعد إلهي كما إن شاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث إله الله بك يدذي جا أو يعني جين كلام ما كان من الجلي وفيرسو مركز جوري الجلي سو أما شوبين سنتر كي دكامة أسوق الجلي ما أوراني يسيد الله عن كام من الجلي لب يدذي وجين كمان من الجلي كيس رجع أي كيس دو مركز جوري أسوق الجلي سيدوك دكامة مركز الجلي سو سيدوك مسخوشة مركز جلسة محبوب كوانت أنا حكيت شيء سامش عملي دقيقة هنا ولا شيء هذا ما نك أذكرت آخر النهاية أذكرت ده آخر النهاية ما أنت واحد كل عام يسنى لكن أذكر لا أنت مسخوشة للجلي والنبي صلى الله عليه وسلم سنة ذي سي لجيس مري واحد ما أنت ده شيء إن أيادي ولي بدم بأيادي إيسن جلين أو شيل أهر دعي إن ما أنت واحد سؤال بأح أو مرت نورشان عرفت هذا الضبجلو نورشان اللي عريريو شدة فربنا لو سميه marka insha Allah taala waxaan jeclaan lahaa walaaluhu inay ku tusaale qaataan adkaartu taakiriya maaha nabiga sallallahu alayhi wasallam soo rartay adkaarul masaa oo galabka adkaartu akhrisan jiray nabiga iyo tuu sallallahu alayhi wasallam akhrin jiray subaxii kulligan inaan isku dayno inaan barano waxa loola jeedaa waa ducooyinkii kulli inaan barano si aan insha Allah taala ugu nabad galno Zubayr maxaad insha Allah taala walaalaha kula dardaarmaysaa dhowrka kula qof waa dartood meesha u safariisatay insha Allah taala dardaarankan waxaad wax yar ka hormarisaa hadda maanta maxaad dareemaysaa xanuunadii tirada badnaa ee soo martay horta sheekh maxamed horta ma fadhiisan jirin gaarigan markaan wadaayo xitaa meelaan ku baagareynayay waa jimicsanaa maanta dhan waa jimicsanaa dhabarka kama fadhiisan jirin baana dhool unbaa maanta dhan daldala marka qof bukaan baaba ahaaba hadda am physically and mentally fail anoo dhan baa fit waxaa moodaa inaan position fiican kusoo laabtay ma aragtay ilaahay qadartiis xitaa shaqo dadka markaa u taga xitaa kuwa shaqada way iskaga kiikici jireen shaqana ima siinayaan war qofkii iga hor imaadaba lugooyo baan kala kulmi jiray iyo ciriiri marka noloshii baa ma aragtay hard waxaan ku jiray hard life baan ku jiray waxaan ku jiray challenge badan oo ii sheeg xitaa bulshadii society meesha shaqo hadaan ka doonto obstacle baan waxayna muraad markaa raba hadana obstacle marka fudayd badan baa hadda ka dareemaya boodhigayga iyo sida u noolahay xitaa noloshayda waxaan ka dareemayaa ma aragtay reereen badan iyo ma sha Allah baan ka dareemayaa dhankii caafimaadka wadnihii oo ilaga sii daayay xanuunka iga haystay dhabarkii madaxii oo ilaga haystay xitaa thinking badan ma lahayn qof fakaraya ma ahayn qof maanta dhan waxaa muddo adig 14 sano waa iska dawareegsanayaaba wixii waxaan rabaa inaan qabto mana dhameystiray never ever marka dhan kastaba ma aragtay waxaa jiray albaabyo badan baa iga xirnaa iyo obstruction badan baa la kulmayay marka quraanka 14 bari baa hadda waxaan dareemayaa qof brand new qof ma aragtay hadda nolosha cusub oo ma aragtay qofka yes and I can even see from my jobs hadda CV-gayga iyo waxaan dareemayaa mo ma aragtay inbox-kayga ina aniga ila rabo iyo shaqooyinkii oo awal ciriirigan ku jiray hadda I'm getting more jobs even I'm seeing a lot of different things from my life الحمد لله تعالى ولا يال وحن رجينا إن شاء الله تعالى إن فهمتين أما أنتوا وسعتها ربي سبحانه وتعالى القرآن كيسا إلهي أودي سمركو دمعين وحموجي قرآن كمعجزة أولي هنا تسيسا لكن وحن كذا دارمي إن شاء الله تعالى قصة قدام بيسي هذا أصلا بندقني last فيديو قدام بي أنقلني قبلي ولا شيء هيدا سدح المرودي ككعين ولا هلا بدن با مركب علاز دري ما أصير هذا أما مرودي كفريا قصدان sidoo kale waxaan rajeynayaa insha Allah taala tiyo kale inaysan noqonin hadii shaqada aad culays ka dareento macnaheedu inaysan mar walba ahayn in bulac kugu dhigan yahay dhabar ku jiidayo gadaal ku jiidayo laakiin ay dhici karto in ama farsamo xumo ay jirto ama aad u baahan tahay application badan inaad qorto
laga yaabo inay u baahan tahay inaad ilaahay subxaana tacaala barido duco badan iyo astakfar badan u baahan tahay marka insha allah tacaala walaal waxaan rajeynayaa inaan ku cibro qaadan doono videogan walaasheenna waxaan ilaahay uga baryaynaa caafimaad buuxa inuu siiyo taam ah ilaahay subxaana tacaala inuu nolosha dambana u iftiimiyo mustaqbal iftiimayo uga dhigo idinkana aamin udahay insha allah tacaala ilahay aqbalo maxaad uga tegaysaa walaalaha ku daawanaya dardaaran walaalahey muslimiinta i daawanayo kulli ii sheeg adduun weyn oo dhan waxaa ugu tegaya horta dardaaran kitaabkaagana hayso 5 waqtina ka adkaaw suwaysa la-aanna ha bixin wax kasta oo istaal meesha aadi lahayd horta kitaabka kow ku orod kitaabka markaa ku orodid bal arag bal ii sheeg anika ma aragtay caafimaadka ilaaha keeno iyo ii sheeg xanuunka laakiin xanuun rabaaniyo ma aragtay medical hadduu yahayna wakaa haddii wax medical ku shuqul lahaynna haddaa weysid isla markiiba x-rayga dambe ha isku daalinin straight waxaa aadaa ma aragtay kitaabka ku orod ما شاء الله إلهي خير بدن حكوسيو أم زبير إن شاء الله آمين هيد ولا سعوتين إن شاء الله تعالى ولا شيء دردانا كذا وحرجيني أنا قاضنه معناها أنا وحوي كتاب كقرآن كأه إنه نقض مر والبا كان وجوه الرياء أكو فكرنا حتى هدي حنون عادي ودختار أبو بهانتها وكوهاي مرك قرآن كأخرته إلهي جد كي صحراها في عناء صحراها هاي أتو داوب لها أمر أختار كي وفي عناء وهو الدنيا إن شاء الله تعالى ولا لا يبدو عادي إن أنا رجينا إن شاء الله تعالى أنا قرأ يدرسوا دعينا أنت نبدأ من مر لبعض هو وكل مدون والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.